kulan ay soo abaabushay hay'adda Action Supporting Center ayaa waxa lagu qabtay habeennimadii xalay dalkani Koonfur Afrika magaalada Johannesburg. kulanka ay ka soo qayb galeen shacabka Soomaaliyeed inteeda kala duwan ay ka mid tahay safaaradda Soomaalida madax ka socotay iyo qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika Maxamed Mire iyo ururada ay ka jira dalkani Koonfur Afrika ee Soomaalida ku midaysan yihiin ayaa waxa looga hadlayay sidii Soomaalida dib loogu celin lahaa ama haddii ay doonayaan inay dalka ku sii nagaadaan ay ugu sii noolaan lahaayeen si nabadgelyo ah. haddaba waxaa ka soo qayb galay haween, caruur, dhalinyaro iyo bulshada inteeda kala duwan. waxaa goobta ka hadlay madax kala duwan oo ay ka mid yihiin hay'adda Action Supporting Center madax ka socotay iyo sidoo kale qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika Maxamed Mire oo ka soo qayb galay kulanka ayaa asna ka hadlay. So I think what you can do right now is to organize your community and to speak at an individual level. Everybody knows everybody. Everybody has some networks, groups. If you can do that, I think it will be more better. I think integration, and this I will focus on more on Somali, South Africans, because integration is not a one direction, it's not a one-way relationship, it's always two-way. And I think the Somalis has to take the initiative to speak the language of the area that they live. There is no such unity among them. I would highly ask all the stakeholders and our Ambassador of Somalia to work and to play major role and from outside to prepare for that major role to put all together, all Somalia together. Thank you very much. dhammaan Soomaalida, Kenya, Ethiopia, Soomaaliya iyo wadamada kaleba waxa fiican inay sameystaan hal urur kaas oo ay ku midaysan yihiin dhammaantood. taa ayaa u wanaagsan markaana wax walna qaban karnaa. insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan dad isku xiran noqono gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool South Africa iyo adduunka meel kasta joogaan. In the continent and the whole world that we communicate daily. waana mahadsantihiin. Thank you. And we really appreciate it. Well, mine will be very short and rather practical. These small pamphlets you have, my names are, as you have seen there, Alan Haji Yusuf, but it is written from Mogadishu. isku soo wada duubo waa markii saddexaad oo sanad waliba la qabto kulan caynkani oo kala ee hay'adan u qabato Soomaalida ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika. Abdixakiin Ibrahim Cawaale, TV-ga Home Cable, xarunta ganacsiga dalka Koonfur Afrika magaalada Johannesburg.